maraya magacyada عقاشة كسوق غير قشة حفلته عاقل حسن حاج هارون عاقل محمد شامع ظاهر عاقل أحمد موسى آذن عاقل عبد كيسي إبراهيم ديرية عاقل آذن محمود حاج إبراهيم عاقل عبد عول عبد على الله عاقل حسين عبد قدوري عاقل سعيد محمد تورتور عاقل يوسف محمد يوسف سمدون فيصل شامع دعالي عاقل إسماعيل حسي عاقل أحمد عبدي فاعول وكيل عاقل عبد الرحين إسماعيل براء وكيل عاقل محمد ديلويني وكيل عاقل عبد الشكري عبد ولي عاقل علي حاج عمر قال عاقل عبد جامع آذن عاقل بشير هيبة عاقل جامع حسين أبو بكر عاقل محمود عبدي عاقل أحمد عبد شيف عاقل أبشر كوري انت الله دقي قال لهم حفلة داسو مركي هراء وسلوينتي هراء ولا أرقبا تاما تعدكتين حفلة عدكتين وحوية وأمها نقيادتك دقي إنه قبتي شرفك عيلي هذا يا لسي يابسنا عن هراء مالك سهلا بان وحكو قبسان شيء لكن تنوكل انه مهرين انه ينهرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين انت مركي ان كسو غدبو حويه قرات كان قرات عبد الله ودورني هذا لدينا هي عين ماها آدم أحمد كليه واحد دورتي ماها gobolka cayn oo dhan iyo dhulbaanta oo dhan baa doortay waana ogahayo isaga iyo kuwa kalaba waa wiil dhalinyaro ah waa wiil dadaal badan
وأويل وحلو دورت كفلا انتاس وحوي انتاس واحد وقال أنو وحن ليه حفلة وعفرنتها ما تنتي السلام يا دمان مرتي شرفته كسو قيب قشي مدش شاعين تقراد عبد الله أحمد عبد الدعالي وحنو يدنكو سلامينا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدشو كله ومدل شاعينات وحلق على مسارك إن شاء الله تعالى العيمي لنشيق دونه مركا هلكا وحناد وقمهد علينا يا قددي odayaasha iyo cuqaasha iyo gabdhaha iyo dhalinyarada lahayd ee xafladan inay noo suurto gasho oo maanta halka wacana sharafta iyo quruxda ay noo soo gaadho nagala shaqeeyay waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayran inta kadib kollay waxqabadkii gudida iyo hawlihii marxaladuu soo mareen hadalku iska kooban yahay waqtigana inaynu koobkoobnaa fiican oo muhiimadda uga baxno waxaan ku wareejinayaa inoo faahfaahin doona gudoomiye ku-xigeenka koobaad عبد شكري كسودو والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمان مرتي شرفتا كسو قيب شيء شاعين تقراتك بيشا هذا أحمد قراد عبد الله أحمد عبد الدعالي وحنكو سلامينا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربائين أني رسول تاغو waqtiga oo kooban la ajligeed marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay qabanqaabinta shaacinta garaadka mudanayaal iyo marwooyin dhammaan qaybaha kala duwan ee ka soo qaybgalayaasha xafladda shaacinta garaadka beesha aadan axmed garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale sida isimada cuqaasha culimada aqoon-yahanka siyaasiyiinta haweenka dhallinyarada ciidamada nabadgelyada baada saxaafadda beelaha ergooyinka shaacinta ee ka soo qayb galay iyo beesha aadan axmed waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh allaha inagu kulmiyey xafladdan qiimaha badan ee sida weyn loo soo agaasimay xafladda oo loogu talagalay in lagu shaaciyo garaadka ay yeelanayso beesha aadan axmed garaad cabdilaahi axmed cabdi waa mid ay isla qaateen dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha aadan axmed kadib markii ay u muuqatay in ay u baahan yihiin cod ku metesha golayaasha dhaqanka waxay si kabaaraan degis leh oo qaadatay muddo dheer ay isula qaateen kadib shirar badan oo la galay waxay si mug leh iyo miisaan leh isula qaateen markii la sameeyey tashiyo badan xulasho badan kabaaraan degis badan kadib jilibada aadan axmed waxay si mug iyo miisaan leh isula qaateen iskuna afgarteen in ay kaalin dhaqameedka u doortaan garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale isagoo buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa isimnimo sida alla kacabsi aqoon-yahanimo daacadnimo deganaan dhexdhexaadnimo iyo haykal gobolnimoba waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha naga soo ajiibay shaacinta garaadka beesha aadan axmed mid naga maqan oo nagala socda aaladda miidiyaha iyo mid noo daawanaya si layfaba waxaannu si habsami leh oo kalgacal leh oo ehelnimo leh oo abaalgud leh aannu idinku mahadcelinaynaa inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan lagu shaacinayo garaadka beesha aadan axmed waxaa iminka soo gelaya aqoon-yahan maxamed mahdi aadan ducaale oo inoo akhriyi doona taariikh nololeedkii garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale wuxuuna hadalkaygu ku saabsan yahay inaan idiin dul maro
taariikh nololeedka garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale wuxuu dhashay garaadku bishii August 1967 wuxuu ku dhashay magaalada wadaniyiinta iyo hoyga abwaaniinta ee Buuhoodle waxbarashadiisii dugsiga dhexe iyo hoose 1974 ilaa 82 wuxuu ku qaatay magaalada Buuhoodle 1983 ilaa 87 dugsiga sare wuxuu ku qaatay dugsiga Yusuf al-Kownayn ee Burco 1988 ilaa 1990 wuxuu ka mid noqday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo uu dhiganayay kulliyadda baadhista macdanta ama geology-ga 1991 ilaa 92 wuxuu galay dugsi international college oo la yiraahdo International Kapula School oo ku yaala Finland oo ku bartay IT-da iyo computerka 1994 wuxuu galay Bidama Community College oo ku taala magaalada Charlotte North Carolina oo ku baranayay admin and management 2003 ilaa 2005 wuxuu asaasay company gaadiid oo ka jira dalka Mareykanka magaalada Columbus Ohio 2006 ilaa hadda ganacsiyo kala duwan oo kala nooc ayuu mas'uul ka yahay oo ka jira dalka Mareykanka magaalada Columbus Ohio iyo magaalooyin kaleba garaadku xaas buu leeyahay 12 caruurna waa leeyahay ma sha Allah hiwaayadiisa ama hobbiga iyo waxyaalaha uu jecel yahay waxa kamid ah inuu community-ga u shaqeeyo oo community activist ahaado inuu had iyo goor exercise sameeyo inuu diintiisa iyo waajibaadkiisa diiniga u fushado uu caafimaad qabaa waana xoog qabaa diyaarna wuxuu yahay inuu idin shaqeeyo caaqil maxamed jaamac daahir halkan waxaan ka salaamayaa garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale cuqaasha oo jiif abshir kooreeye ugu horeeyo culimo diinka dhalinyarada ningarboodka bahda saxaafadda hablaha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi halkan xafladan la soo agaasimay ee ay soo agaasintay beesha aadan axmed ee ay ku soo agaasintay ee ku shaacinayso garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale beelaha ka soo qayb galay faarax garaad ugaasyo haddii ilaahay kuu sama ogol yahay hayaag yaxye maxaan ku idhaahdaa maxamed muuse khaalid cid kasta oo degta gobolka cayn sida ay uga soo qayb galaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanuna ku salaamaynaa salaanta islaamka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu leenahay goluhu waa golihiinnii aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa camiraadda aad soo camirteen ee cuqaal iyo culimo iyo dhallinyaro iyo hablaba aad ku timaadeen aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin abaalkeedana waannu idiin haynaa intaa ka bacdi garaadkan waxaa shaacinaya oo iska soo dhex qabtay oo ka shawray oo hawshiisa meel dhigay beesha aadan axmed ilaahay garaadkii u shaqeeya ee anfaca ilaahay ha ka dhigo isagana waxaanu leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa xilkaas inuu ilaahay ku asturo aanu ilaahay uga baryaynaa beesha aadan axmed waxaan leeyahay war dadku qofku shimbirtu haddaanay baalan lahayn ma duusho haddii aydaan garaadka la shaqayn dee ma shaqayn karo gude iyo debadba waxaan leeyahay idinkuna la shaqeeya oo si wanaagsan ula shaqeeya
oo isbarbar taaga. caaqil xasan xaaji haaruun salaanka bacdigeed waxaan ii xigaysa madashan sharafta badan ciddii ka soo shaqaysay inta muddaday soo socotay faraheeda ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa. garabkooda allaha galo, garabkooda allaha galo. dhalinyarada waa indhaha dadka, waa indhaha dalke. waa u ducaynaynaa ducadu idinku dhacday ducadu. cid badan baa soo shaqaysay, halgan badan baa la soo galay, shir badan baa la soo galay. waa lagu guulaystay, ha lagu guulaysto. ilaahay waa ka baryaynaa ha lagu guulaysto. marka aan u soo baxo degmada beesha aadan maxmed garaadka ay samaysatay cabdilaahi axmed sulub cabdi, waa soo dhawaynaynaa, aad baanu soo dhawaynaynaa. kii lagu maala ha noqdo, kii lagu intifaaca ha noqdo. ilaahay iidankii waxaanu ka baryaynaa mid beesha hanta oo wax u qabta oo ay ku degto allah ka dhigo. intaasaan garaadkan leeyahay. garaad howla badan baad fooda la gashay, allah kuu fududeeyo, allah kuu fududeeyo. waxaanu kugula ballamaynaa cadaalad sinaan, in haddii ilaahay kuu roon yahay aad talada ka fiirso, lagula wadaago weliba lagaaga sii bato. waxaad ka guddoomisaiyo qalinkaad leedahay cadaalad ogow. caaqil cawil cabdi calanle amba bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladdan shaacinta garaadka garaad cabdilaahi axmed cabdi. intaa kadib waxaan mahad u celinaynaa dhammaantiin dadka noo soo huray wakhtigooda qaaliga ahaa noo bixiyey inay nagu sharfaan oo nagala soo qayb galaan shaacinta garaadka garaad cabdilaahi garaad axmed cabdi. aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa sida qaaliga ah ee aad noogala soo qayb gasheen ee noogu soo hurteen wakhtigiinna qaaliga ah. aad baan iyadan idinka mahad celinaynaa. intaa kadib garaad cabdilaahi waxaa keentay beesha aadan axmed run ahaantii garaad aan iska xulnay oo ka fiirsannay oo hoggaamiye ah oo aan ku aaminsannahay inuu beesha keentay iyo deegaanka oo dhan anfici karayo oo anfacaya biidnillaahi kariim oo inagu filan dhammaanteenba. annaga oo aadan axmeda waan isla qaadannay waana ku midaysannahay. caaqil axmed muuse aadan golaha kan sharafta badan leh ee sida qaaligaa looga shaqeeyey ee juhdiga badan lagu bixiyey ummadda meel walba ka timi ee ka soo qayb gashay garaadada cuqaasha culimmada dhallinyarada hablaha ciidamada waxaanu ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi ilaahay baa mahad leh. halkani waa golo shaacimeed lagu shaacinayo garaadka cabdilaahi axmed cabdi lagu shaacinayo weeye. ilaahay waxaanu ka mahadnaqaynaa oo ku ducaynaynaa kii lagu barbaaro ee lagu maalo ee lagu intifaaco ee mataqaanaa cadaalad ku shaqeeya ilaahay inuu ka dhigo. ilaahay saasaan ugu ducaynaynaa. ummadda dadkeeda gobolka cayn ee qayb walba leh ee ka soo qayb gashayna golahan ay soo ajiibtay mataqaanaa inay ka soo qayb gasho sharaftan iyo mataqaanaa garaadka xalfadiisa ka soo qayb gashana ilaahay baa mahad leh. waa mahadnaqayn aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. caaqil aadan maxamuud xaaji ibraahim waxaan salaal labaad siinayaa ummadda halkan u shaqaysay ee juhdiga badan ku bixisay ee intaa u taagnayd
kuwa ciidamada qalabka sida intaba salaam baan u sii gudbinayaa waxaan salaam saddexaad siinayaa cuqaasha waxgaradka ningarboodka bahda saxaafadda gabdhaha marwooyinka salaam saddexaad iyagana intaasa siinaya waxaan u malaynayaa waxaa la yidhi waa yeel sheeke laga reeb tusaalooyin laga wari waxaan u malaynayaa dee in badan baa laydiin duceeyey waanadiina waa idiin soo dhammaatay annagu iminka waxaa noo hadhay garaadka waanu u ducayno dadka ka soo qayb galay waanu u ducayno hadday kuwii keenay yihiin iyo hadday yihiin kuwa soo ajiibay gogasha loo dhigay soo ajiibay yihiinba waxaanu leenahay intii soo ajiibtay miisaanka xasanaadka allah ugu daro meel kastoo ay ka yimaadeenba oo ay juhdi soo geliyeen oo ay baabuur soo raaceen miisaanka xasanaadka allah ugu daro miisaanka xasanaadka allah ugu daro intaa waxaan raacinayaa in yaroo dardaarana yaan garaadka siinaya garaad waanu ku doorannay waxaanu kuu doorannay inaad shareeca nugu dhaqdo waxaanu kuu doorannay inaad cadaalad nugu dhacdo waxaanu kuu doorannay inaad midnimo nugu dhaqdo caaqil xuseen cabdi guduri waxaan mar labaad sii salaamayaa beesha garaadka dooratay salaami maayo waxaan ka hor salaamayaa anigu beelaha soo ajiibay ee noo yimid ee dhulbahantay ama gobolka cayn ka toban cid kastoo ay yihiinba waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta garaadka halkani waa madal shaacineed waxaa lagu shaacinayaa garaad cabdilaahi garaad axmed garaad cabdi baa lagu shaacinayaa waxaan leedahay garaadka waa garaad islaameed waa garaad soomaaliyeed waa garaad dhulbahante waa garaad gobolka cayn waa garaad beesha aadan axmed dooratay waxaan leeyahay anigu garaad hadday dardaaran ahaydna waa lagu yidhi haddii duco ahaydna waa lagu duceeye ducada allaha ku aqbal caaqil siciid maxamed tuurtuur haddaannu nahay cuqaasha ama beelaha aadan axmed waxaannu soo qaadannay garaadkan aannu shaacintiisa u fadhino xafladda garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale waannu qaadannay haddii aannu nahay beesha aadan axmed anoo ku hadlaya markaannu dee isa sii kala gurro beesha reer caraale mahad ama mahadaadan qofba suu u yaqaanno waannu qaadannay garaadka mahad ahaan baannu u qaadannay aadan axmednimaannu u qaadannay waannu keennay garbihiisii baannu nahay baalashuu ku duulayey baannu nahay waa la shaqaynaynaa inshaa allah isagana ilaahay waxaannu uga baryaynaa kii ilaahay ku guuleeyo ee u fududeeyo xilkaa weynee la saaray caaqil yuusuf maxamed yuusuf salaanka bacdi annagu markaannu nahay cuqaasha waxaannu keennay oo in badan ka shuuraynaynay oo beesha ka soo dhaadhicinnay oo isla qaadannay garaadka la shaacinayo ee garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale waannu qaadannay annagu haddaannu cuqaasha nahay inuu inoo shaqeeyo ergadanna soo ajiibtay iyo beelahaannu u keennayoo ma nala qaadateen annana waa idiin keennay ilaahay kiina anfaca gidigeenba ha ka dhigo caaqil ismaaciil xirsi garaad walba waynu dooranaa raggaasu wuxuu la wada firdhaday u maqan yahay wax garab geli waaye xasarad baa laga daba abuur reer buu hadlo waynu israqaan waxaa leeyahay doqontu markay shirka joogto afka xan baa ka saaran
xil baa ka saaran markay dibadda u baxdana xam baa ka saaran war ma maqlaysa hebel wuxuu lahaa suu ahaa ma maqlaysa war calooshiinna iyo afkiinnu yaya kala gedisnaanini ninkaa nin xan ula tagana ha yeelanina daacad lilaahayana aan ku dooranna garaad ilaahayna aan ka cabsano ilaahayna madar khayr qaba haynoo shubo caaqil bashiir haybe saddex qodob oo yareer baan odhanayaa marka hore beesha aadan axmed garaad cabdilaahi axmed sulum waa garaad beesha aadan axmed waa garaad dhulbahantee waa garaad soomaaliyeed garaad soo dhowow soo dhowow soo dhowow kugu maallay kugu maallay kugu maallay intaa haddaan ka gudbo garaadka annagu waan keennay garaadkuna waxa weeye gobolkan cayn buu u dhashay ummadda gobolka cayn iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan baad garaad u tahay intaa haddaan ka gudbo garaadka kelmadda aan odhanayaa waxaa weeye oo ii horraynaysaa garaad waxaa la yidhi waxaa garaadnimo kaa qaada ama dhaqanka kaa qaada gareexo gacan gudhan iyo guddoon jilicsan saddexdaa qodob baan garaadka kula dardaarmayaa oo aan kala dardaarmayaa gareexo gacan gudhan iyo guddoon jilicsan xafladdan waa shaacayn hadalku waa kooban yahay dhammaan dadkan xafladda ka soo qayb galay qof walba waan salaannay mar labaad iyo mar saddexaad aadka allaha inoo barakeeyo berigii annagu aanu soo gaadhnay dadkoo dhan waa ka weynay aniyo xasan xaaji haaruun iyo abshir iyo raggaasi waanu ka weynahay dadkan oo dhan waxaanu soo gaadhnay in la yidhaahdo maantoo kale kugu maallay bay ahayd arrinkiisu kaasuu ah cabdilaahina waxaanu leenahay kugu maallay jiif caqalisa maxamed nuux maxamed baan wakiil ka ah mala dadka badankiisu caqalka sanweynu u yaqaanaa maxamed nuux maxamed baan wakiil ka ah waxaan wakiil kaga ahay garaadka cabdilaahi axmed sulub inaan soo dhoweeyo oo beesha aadan axmeda dooratay aan ka mid noqdo yaan wakiil ugaga ahay waxaan idinku salaamayaa shirku waa salaanta islaamka mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhallinyarada ururka haweenka wixii xidhxidhay ay dadku salaamayaan dee waajibaad leediin baa gudateen mid inoo wada gaaraa gudateen ha moodinayna idinkaa lahaaye ha iska dhigina dad lib kale warta waxaan ku hadlayaa anugu afka 6 oday oo ilmahagara 6 oday oo ilmahagara afkooda ku hadlaya runtii dad fara badan oo tuulooyin fara badan degan baan arrinta ka wada shirnay ka wada hadalnay waxaan sheegayaa dhammaan bulshada ilmaba hogaadeen waxay ayiidsan tahay hoggaan aadan axmed oo aan cid lagu xumeynaynin oo kororsiima ah oo lasla qaatay garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale inuu noqdo ayay aaminsan yihiin ee sharafta badan ee sida fiican loo soo agaasimay ee ay qabteen beesha aadan axmed ee ay ku shaacinayaan garaadka cabdulaahi axmed ducaale waa la soo dhawaynaynaa waanu la soo dhawaynaynaa anigoo ah caaqil jaamac xasan abokor beelhaan beesha maxamuudgaas dhammaan beelhaan iyo odolahaanba waa soo dhawaynaynaa salaan kadib waxaanu nahay annaku beelaha soo ajiibay ee xafladda ka soo qayb galay madasha beesha aadan axmed garaadka iyo madasha ay dhigtayba waa soo dhawaynaynaa waana ajiibnay
intaa waxaa raacsan aadan axmed haddii aad noo keenteen waxaannu idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan annana waa la shaqayn doona garaadkana hal dardaarana ayaan leeyahay garaaddo badan buu leeyahay iyo isimo reer buuhoodle aadan axmed waa ku keenay reer buuhoodle ama islaamkaad u dooranta garaaddo badan bay leeyihiin kuwaasaad ku biirtay waxaana garaad noo noqon doonaa ninkii noo shaqeeya isinkii noo shaqeeya cid kastaba ha ahaadee reer buuhoodla kaasaa isin noo doorannay wax dhibaatii ma jirto waxa weeye aniga khaas ahaan waxaan ilmaabti baan aabbahay iyo hooyadii laba walaalaa kala dhalay waxa weeye awalna wiilkaygii haddana waa garaadkaygii reer subaa caligari oo dhanina waa sidaa reer subaan oo dhani waa sidaa way fadhiyaan hadda way joogaan waxa weeye qoladan caligarigaana geel baan la wadanaa oo iyagana hadda geel baa naga dhexeeya waxa weeye garaad lagu khayraa ilaahay ka dhiga ilaahay garaad lagu khayraa ha ka dhigo ilaahay mid lagu faa'iido ha ka dhigo isaga waxaan leedahay dadka cadaalad ku dhaq wax kale ma gaadhsiin kartid lacag ma gaadhsiin kartid wax kale ma gaadhsiin kartid cadaalad ku dhaq kuwa ku soo qabtay aadan axmed oo dhan intay dhex mareen adiga ku soo qabtay u abaalgudo cadaalad ku dhaq garaad waa ku soo dhowaynay waa ku doorannay aadan axmed hadduu yidhi annaga ku doorannay way ku saxsan yihiin annana waa la doorannay waa kula doorannay annaguna garaad soo dhowow garaad soo dhowow waxaan tilmaamayaa garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale oo maanta loo shaaciyey golaha isimada dhaqanka waxaan leeyahay ku soo dhowow garaad cabdilaahi soo dhowow garaad cabdilaahi soo dhowow golaha dhaqanka ku soo dhowow golaha dhaqanka ku soo dhowow golaha buuhoodle golaha saddex sool iyo sanaag iyo cayn golaha dhaqanka soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta ku soo dhowow ilaahayna waxaan ka baryayaa xilkaa maanta lagu shaaciyey ilaahay inuu kugu asturo qodobka labaad waxaad ku baxsan kartaa laba shay cadaalad iyo socod yar beesha naaliye axmed haddaannu nahay wadinla dooran waxaan hadalka kaga baxaya hadal dihinoo imika yacnaha aynu dhaafnay ma jiro waxaan ku soo dhowaynayaa cabdilaahi cabdi axmed waa idinla doorannay beesha naaliye axmed haddaannu nahay waa idinla doorannay waa ka baxay anigu waxaan nahay dee wafdidii ka timi beesha guuleed garaad waxaanuu nimi xafladdan shaacinta ee qiimaha badan inaannu ka soo qayb gallo waxaan rajaynayaa caanashubkana inaannu ka qaybgeli doonno haddaannu intaa noolaanno intaasi waa intaa salaan iyo ducaba in badan baynu isnidhi dhammaan waad salaamantihiin salaamta islaamkaannu idinku salaamaynaa garaadka garaad cabdilaahi axmed ducaaley nimanka inoo keenay ee aadan axmed ama axmed garaad waa soo dhowaynaynaa waa la dooranaynaa waa la dhisaynaa waxaabaannu weliba anigu aan leeyahay warde horta wax waliba way tarmeen wax waliba waa tarmeenoo lacagtii iyo baabuurtii iyo dhismihii iyo dadkiiba hadduu tarmay dee ingiriisimaduna tarmaan dee anigoo aad bay iila quman tahay iyadoo aan cidna loola jeedin ka horena anigu dee kuwa hore oo la nacayoo lagu xumaynayana anigu ma ogi galaan kadib maxadu allay u sugnaatay anoo ku hadlaya ugu horrayn afkii guddida qabanqaabada madasha tan xaajada sidan u soo dhigay afkooda anigoo ku hadlaya marka hore waxaan mar labaad salaamayaa beesha aadan axmed meel kastoo ay joogto mid kasta oo maqan
mudnaanta ay leeyihiin oday iyo caaqil iyo aqoon-yahan meel kasta ay joogaan salaanta islaamkaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar saddexaad anoo afka aadan axmed ku hadlaya waxaan salaamayaa madashan dadka nagala soo qaybgalay shaacintan garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale gobolka cayn dadka ku nool ee sharafta leh nagala soo qaybgalay salaanta islaamkaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib intaasoo la isku daray afkooda anoo ku hadlaya waxaan hawada salaan u marinaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay iyadoo madaxweynayaal leh laamaha dawladda leh iyo shacabka dhaqanku u sarreeyo iyo ururada kala bedelan bulshada kala duwan ee soomaaliyeed ee shacabka hawada waxaan u marinaa salaan kal iyo laaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa haddaan ka soo gudbo annagoo beesha aadan axmedah miiska cuqaasha gobolka cayn ilaa soomaalideed waxaannu ku soo darsannay oo aannu ku biirinnay oo ku tilmaannay xilka garaadada gobolka cayn laga bilaabo ama ilaa soomaaliba garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale ku soo dhowow beelaha soomaaliyeedna waxaannu leenahay isimadii horena kuwa yagii bay ahaayeen kana naga qabto oo noogu dara mid walba xurmadiisuu leeyahay nalama karaama yara kuwii horena kuwa yagii bay ahaayeen kanuna waa kuweennii naga guddooma nala qabta intaasuna waa iga intaa haddaan in yar u leexdo beesha aadan axmed waxay maanta arrintan uga dhigan tahay xornimada kenya maalintii ay qaadatay yaa jooma kenyaati hadlado wuxuu yidhi jamhuuriya dhey kenyaati dhey halaambey maalintii kenya xornimada qaadatadee maalintii jooma kenyaati uu madaxda noqdadee halaambey dheydkan waa dheydkii aadan axmed uu shaacsaday garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale waa dheydkay garaadka soo magacowdeen waa dheydkay garaadka ka dhigteen axmed cabdi ducaale garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale ay soo doorteen miiska isimada ay ku soo darsadeen cadaalad iyo guddoon laga fiirsaday iyo garsoor iyo gamca furan intaba ku soo dhowow intaba kii daboola baahida oo dhan daboola allaha kaa dhigo waxaan ku soo ururinayaa qodob dhaqanka ah haddii dhaqanka aan taabto in yar dhaqanka haddii aan wax ka taabto wixii aan leexiyey warbeenta iska daadhaha dhaqanka guud ee isimadeennu 1 iyo 2 iyo 3 siyoonay kala yeeshaan maanta waxaynu shaacinay garaad cabdilaahi wargaraadkeenna koobaad miyuusan ahayn garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaadka ku xigaa miyuusan ahayn garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud garaadka ku xigaa miyuusan ahayn garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale garaadka ku xigaa miyuusan ahayn garaad cabdirisaaq garaad soofa durraan ilaa xadkaasu waa dhaqanka ay kala leeyihin isimada kalena dhexdaasay ku jiraan kitaab iyo gelkiisa waa laysku xurmeeyaaye cabdilaahi dee siyoonaha waa lagaa leeyahay waa inaad ku xisaabtantaa isimadaadiyo ka ducaysataa iyana ay kuu duceeyaan oday dhaqameed waxaan u ahay oo ka mid ahay beesha baha maansame iyo bahiidoor waxaan leedahay afkii oday dhaqameedkaan ku hadlayaa waan soo dhowaynayaa garaadka waan soo dhowaynayaa boqolkiiba boqol baan soo dhowaynayaa maalintii la ii sheegay waan ku farxay shareecada islaamku maxay ka qabtaa in qabaa'ilku uu doorto garaad ama waxa loo yaqaano ugaas garaadka in la doorto oo ummadda ama qabaa'ilku garaad doorto waa shay sharci ah oo ku saabsan diinteenna islaamka waxaana inooga warramay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلهي سبحانه وتعالى وحليه وحو قاضي وبلن كقاضي في بنو إسرائيل أي بلن كقاضي وحنا إلهي سبحانه وتعالى وكدورتي لبية 8 جراد أما لبية 8 أجاس
sidii loo yaqaanaba ayaa ilaahay ka doortay baa subxaana wa tacaala uu leeyahay waxaana ilaahay subxaana wa tacaala uu kula ballamay ummaddii garaadada dooratay iyo dadka cuqaasha ah dooratay inay salaada oogaan sakada bixiyaan rususha ay rumeeyaan oo iimaan ay la yimaadaan ayna u gargaaraan rususha iyo diinta ilaahay ay u gargaaraan haddaad sidaa yeeshaan oo ballankaa qaadaan baa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay dembigiinni baan idinka dhaafi waxaan idin gelinayaa janno waxaa weeye idiin ballan qaadayaa waa dardaaranka taqwada ilaahay iyo cabsida aynu isu dardaarmayno intaasi waa intii ilaahay inoo abuurtay oo waxa kaleba waa dhalanteeda ilaahay inoo keenay koonkan oo cabsida ilaahay aynu ku dadaalno oo ilaashanno aakhiradeena iyo adduunyadeeduba iyaday ku hagaagayaan cabsida ilaahay bay ku hagaagayaan waxaan idiin dardaarmayaa cabsida ilaahay taasna intaa haddaan kaga gudbo xafladan barakaysan ee shaacinta xaflatu iclaam weeye xafladda ogeysiiska iyo faafinta garaad cabdilaahi axmed oo ay beesha aadan axmed sidii dhaqanka beelahu ahaa ay mar caaqil doortaan mar isim doortaan dhaqamada weeye ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu bani aadanka u jideeyey oo u banneeyey oo horay ugu dhaqmi jireenoo weeye waxaa weeye waanu soo dhowaynaynaa waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu ka yeelo garaadkan waa hoggaan ummadda hoggaaminaya isimadii ka mida weeye ku soo biiray mid dalka iyo dadka iyo diintaba anfaca in alla ka yeelo baan ugu ducaynaynaa hadal badani meesha ma yaal waa soo dhoweyn iyo faafin xafladanoo aada u qiimo badanoo dee markay sida noqotay shaacintiisii ogeysiiskii talo caleemasaarkuna see noqonaya waxay la tahay beeshay u taallaa aad baan ugu soo dhowaynaynaa ilaahayna saasaan ugu weydiinaynaa oo ugu ducaynaynaa awalan ducada waa mid caamahe ilaahay subxaana wa tacaala inoo dambi dhaafo intan iyo intii dhashayba allah u dambi dhaafo inta kale mu'miniinta allah u dambi dhaafo dembigeenna iyo kii waalidkeenba allah dhaafo kuwa dhintay iyo kuwa noolba allah u dambi dhaafo abaarta allah inaga jebiyo cirka madar khayr qabo oo muntafica allah inaga siiyo garaadka ninkaa la caleema saarayo oo ummadda intaa leeg isugu timid oo hawsha intaa leeg soo galay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu ka yeelo mid dalka iyo dadka iyo diintaba anfaca ayaan ugu ducaynayaa waxaan u dhiibayaa dastuurkii ilaahay inoo soo dejiyey ee bani aadanka ku karaameeyey waa kitaabkii furqaaneed ee bani aadanka koonka ilaahay inuu ku maamulo oo dastuurkii islaamka ah waa islaamku gaar uma leh ummadoo dhan baa leh kaafatan lilkhalqi ninkii diidayaa diido gaalo iyo islaam ma kala leh kitaabku u wada quseeyaa gaalada lafteedu cadaalad bay u baahan tahay cadaaladii gaalada loo samayn lahaa isagay ku taallaa kaasaan u dhiibayaa garaadka allaahu akbar ha ogaado qof kasta oo mas-uuliyad qaada ilaahay amaamallaha in lagula xisaabtamayo ilaahay agtiisa in lagula xisaabtamayo marka waxaan leenahay garaadka ilaahay mas-uuliyadda iyo xilkaas ilaahay ku fududeey inana waxaan leenahay walaalayaalow waxaan ugu darayaa ha noqoto dhaqankiisa iyo waxa uu maamulkiisu inuu uga dambeeyo shareecada iyo diinta ilaah wixii la qabanayo in la waafajiyo shay kasta kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh wax kastoo la qabanayo inay waafaqsan yihiin inay curfiga wanaagsan ee shareecada aanay diidaynin inay qaabilsay curfiga iyo shareecadu isma diidayaan curfiga iyo dhaqanka wanaagsan ee aan dembiga lahayn iyo shareecadu isma diidayaan inay curfiga wanaagsan iyo shareecada waafaqsanaato inana waxaan leenahay walaalayaalow inana waxaan doonaynaa
inaan innaguna garaad kala maqallo oo adeecno wixii aan macsida ilaahay iyo xumaan ahayn waa taqaanin caaqilkayga waa cabdilaahi saleymaan wakiil baan ka ahay wakiil anaa ka wakiila garaad cabdilaahi axmed cabdi yaa iskale golaha kan oo loo soo agaasimay waa ku kalsoonnahay waana soo dhowaynaynaa waxaanu ku soo dhowaynaynaa gacmo furan niyad furan weji furan qalbi furan baan ku soo dhowaynaynaa madashan shaacinta ee garaadka lagu shaacinayo aniga oo ku hadlaya laba teetal oo teetalkii guddida qabanqaabada madasha tan iyo beesha anigu aan ku matalaya halka kan reer cayaar hagar waxaan leenahay haddii aanu nahay beesha aadan axmed waanu doorannay waana ka tashannay waana ku tashannay waxay la tahay wakhtiga oo jooga aawadii wakhtiga oo gaaban aawadii hadal badan inuusan halkan ka sii hadhin bismillaahi raxmaan raxiim madashan quruxda badan sida cajiibka anugu inaan New York joogaaban mooday maanta waaba la yaabay dadka quruxda iyo shacniga ka muuqda iyo garaadka sharafta iyo karaamada leh garaad cabdilaahi axmed cabdi dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laba qodob baan doonayaa inaan ka hadlo horta dadka ilaahay baa nasiibka u kala dhaliyey muddo aad u dheer oo 100 sano ku siman baa garaad baynu dooranaynaa aynu lahayn laakiin ilaahay maanta inuu inagu guuleeyey bay u egta waxa weeye qabiil helay garaad jaamici ah oo maalqabeen ah oo waxa weeye nolosha bila'aadanku ku nool yahay soo arkay waayo inagu nolol kuma nooli runtii wallaahi daayeerkayna nolol dhaama oo waxa weeye waxa xun iyo waxa wacan u kala soocan yihiin baad nasiib u yeelateen horta abshir dhaha qodob waa qodobkaas waxa weeye haddaad la shaqaysaan oo aad ilkaha iyo lugaha isugu geysaan wuu idiin shaqaynayaa anigoo ku hadlaya afka qurba joogta wakiilka qurba joogta waxaan idinku bishaaraynayaa guud ahaan qurba joogta dhulbahante gaar ahaan qurba joogta beesha aadan axmed inaannu idinla qaadannay shaacinta garaad cabdilaahi axmed cabdi intaa markaan ka gudbo waa soo gaabinayaa waqti badan ma haysano annagu haddaan nahay qurba joogta idinku halkan unbaad ku xafladaynaysaan laakiin annagu 5 qaaradood baanu ku xafladaynaynaa bal horta taa ogaada social mediaha iyo warbaahintana waad ka arki doontaan بعد تحية الإسلام anigu waad ogeydeen de golihii Axmed Garaad baan garaad ka shaaciyay shaacinteedu way horeysay hadeerna waa ku ceshanayaa waa taageersanahay ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaan uga rajaynayaa guul iyo gobonimo waa golo garaad iminka waa notice-kin baan bixinaynaa laakiin weli kumaynaan shubin caanihii waa inoo harsan yihiin biidni illaahi tacaalaa waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay inooga dhigo nin aadan axmed sida la sheegay oo reer hawl badane reerkaa hawsha badan nin ku filaada ilaahay inooga dhigo intaasaan kusoo koobayaa qurba joogtana dee waxaa hadlay awowgay baa hadlay cabdiqani marka intii uu yidhi baan ku raacsanahay iminkana balaynkii shirka yaan soo bandhigayaa ee buntirsiga qabiilkiyo mid aan beel ku kala soocin baari aanu kala eexanayn maalintii ba'an biyo dhaansho aan buubayn badhaha jiilaalka badhay laguma faanee mid aan nagu bakaylaynin badhay laguma faanee mid aan nagu bakaylaynin
buuhoodle boqor caadiya iyo abid u baahnaa kii aynu baadhbaadhnay baa booska soo galay kii aynu baadhbaadhaynay yaa booska soo galay barwaaqiya midayn buu rabaa inuu ku baaqaaye inana waa la baal taaganay buurad iyo xoog mar haddii garaadkaygii yimi waa gobaysanaaye gubballaadhan baadaay ninkii garan laayowe aan gorfeeyo maantoo kalaan gasa bixiyaaye aan gorfeeyo maantoo kalaan gasa bixiyaaye gebigii shabeelliyo garrisiya dorow ganka xamara gonyaha walwaaltaniyo gafoole afka goday gallaadiyo wardhaartaniyo garoode galmudug garacadiyo gurigi bosaaso goonyaha nugaaloo dhan iyo gudahood weyne hargaysada isgijina haysiyo gobolka buuhoodle intaasaa gayaan wada dhashay kala gaadonaaye garaadna waadu tahay umiyaha gurti loo qiraaye garaadna waadu tahay umiyaha gurti loo qiraaye giddigeed inaad soomaali gaadisoog keento oo gacal walaalaysabaadi gasbahaysaaye allahayow guddoonshii ka yeel gushuwaadiye allahayow guddoonshii ka yeel gushuwaadiye afarta gedaanuga socdiyo gubiyo sugandhe gudgude ismaaciil midhiyo gankii cali dhuxdhe geesigii samatariyaadan carab gumciyadoodidhe geesigii samatariyaadan carab gumciyadoodidhe geydhkii ducaaliyo halkuu nuurka godiyaydhe gaaniina ducaaliyo ciise holan gabayadoodidhe godkiina cigaal waayo hore maansadow galaydhe afar kalena mangagaxeenee gadankii hadhaydhe afar kalena mangagaxeene gacdankii hadhaydhe geesigan daaroodkoo dhani waa gardaadiyaaye gedeega dhulbaantoo dhanina waa guntaday wooye shirshoore waa gayfan yahay gaasna waa yimiye garaad faarax waa ka gabraday gurtiiya shiikhe axmed garabna waa gacanta midig laguna gadeeye gadhaastiyo wata odayadii ay galbeenayaane intii gacan nugaaleed ahayd golaha wamushe gocondhaale khaalidkii ku jirayso gawaan oradye war waataa gammaankiyo fardoo gaardiyaayaane allayle garaad weeye gurti loo qiraaye giddigeed inaad soomaali gaadisoo keento oo gacal walaalay sabaadii gasbahaysaaye allahayow guddoonshii ka yeel gushuwaadiye afarta gedaanuga socdiyo gubiyo sugandhe gudgude ismaaciil midhiyo gankii cali dhuxdhe geesigii samatariyaadan carab gumciyadoodidhe geydhkii ducaaliyo halkuu nuurka godiyaydhe gaaniina ducaaliyo ciisoon gabayadoodidhe godkiina cigal waayo hore maansadow galaydhe afar kalena mangagaxeenee gadankii hadhaydhe waaba gabaygu yeela gudbina waa guntaayaye garkaa iyo garkaa dadkii waa soo guclayahaye giddigii islaamkoo dhanina gaafka waa imane gogol nabadabaad leedihiyo gawaiyo xore gogol nabadabaad leedihiyo gawaiyo xore garaadyo waxaan ku idmaday hayga garan waaye haddii gibil madow iyo horweyn guula la afduubo oo gabanna ay wada dhintaan laguna geryoodo waynaadan goobtii xun tarin guluf xoolaadeedka
waynaad nabadu gacan hadisa goriyaa laylba waynaad gobbada tirtaaga turtiyaynta waynaad gobbada tirtaaga turtiyaynta waynaadan sharciga gesmarayn dinta lagu gaadhay waynaadan sharciga gesmarayn dinta lagu gaadhay gutaalaa isaaq iyo hawiye ama gudaha daaroodba aadan kala godbayn umiyaha gullawada untay waynaad garsoorkii u tahay dunida loo gaatay waynaad garsoorkii u tahay dunida loo gaatay gafi maysidoo haybtu waa gumaradaniye iyadana godka sara ku qaad boqorku waa gacal madiidaane hase yeeshee haddana hadalka guntiisii iyo gunaanadkiisii ayaynu iminka joognaa waxaan leeyahay hambalyo hana la isku duubnaado mid kalena waxaan rabaa inaan ka dabageeyo waxaa la sameeyaa had iyo jeer markii qofka la xiiseynayo waa lagu soo yaacaa wax kasta oo dhaca Soomaalidu dhaqan bay u leedahay inay ku soo yaacaan ama isna noqoto ama dawlad ha noqoto ama wax kale ha noqotee hadhowna waxay bilaabaan dhaliilo iyo in la yiraahdo halkan wax ka bixinay sidan baa leeyahay waxaan leeyahay dhaliishaana inaga ilaaliya ilaahay baa ummadda baahidooda ka bi karaan noo keentay garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi noo keentay ayaa mahad labaad leh annagu markhaati ma nihiin waa idinla dooranay garaadka markhaati ma nihiin garaadka idinku waa iska soo qabateen annana waa idinla qaadanay soo dhawow garaad hambalyo boqolkiiba boqol baan idinla qaadanay in kaftana haddaan ku daro beesha keentay garaadka tareenka isimada haddaad soo fuusheen tareenka waddada ku ilaaliya aadan axmedow waddada idinkala boodina ku ilaaliya annana waa idinkula ilaalinaa insha allah bismillaahi kariim idinkana kafta weeyo intaasaan idin inta labaad garaad waxaa lagaga baahan yahay cadaalad inaan dantaad dalkaaga iyo diintaada iyo ciiddaada aad u heeliso marka hore 4 taabeelo muddo badan bay waxay u fadhiyeen talageliyo inay dhexdooda ka soo saaraan nin iyagana anfaca ummadana anfaca aan noqonin nin dhexda ka jaba aan ku filaan hawshiisa garaad Cabdilaahi Axmed Cabdi beesha inta beeraha inta leeg oo muddo badan u fadhiyay talo yaa dhexda intay istaageen gacanta soo qabsaday waxay u soo qabsadeen inuu iyaga anfacayo oo uu ku filan yahay ummadana uu anfacayo bal marka hore waxaan idiin sheegaynaa dadkow mid dibad jira iyo mid guda joogaba waxaan idiin sheegaynaa aadan axmed xiddiga ay iska soo saareen ee shaaciyeen ee garaadnimada u doorteen bal marka ugu horraysa iyaga waa u waxtar dadweynahana waa u waxtar siiba reer buuhoodle waa u waxtar maxaa yeelay beeraha intaa leeg oo aan sidde la qabsada lahayn oo iyagu taladoodu meelay ku ururta lahayn cid walba waa wax yeelo maanta annaga taladayadu waxay ku soo ururtay meel qura inaan isugu keenno oo ka shidaal qaadanno waxa weeye intaa la dhigay garaadhaan dhigay xafladdaas oo markii hore ah oo soo dhowayntii hore ah walaanan u aragba taa maanta aad dhigteen xafladda aad dhigteen waxa weeye waa u mahadnaqayaa dadkii dhigay ee inoo qabtay sharafka ay leedahay yaan la sii yaabsanahay aan hore meelo ka sahlan baan wax ku qabsan jiray laakiin tanoo kale nooma ayan horrayn alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaa markii aan ka soo gudbo waxa weeye garaadkan garaad Cabdilaahi waa doorannay haddaynu nahay cayn maaha aadan axmed keliya waxa doortay ma aha gobolka cayn oo dhan iyo dhulbaanta oo dhan baa doortay
ha ku soo koobina waxa weeye waa garaad aadan axmed waa garaad axmed garaad waa garaad dhulbahante waa garaad islaam waa garaad soomaaliyeed anigu halkaasaan fadhiyaa garaad cabdilaahi garaad cabdilaahi garaad cabdilaahi garaad axmed sulub garaad cabdilaahi axmed sulub cabdi ducaale waa soo dhoweynaa garaad waa ku soo dhoweynaynaa waana ku doorannay waa ku door waxaa kala darmaamay waxaan leeyahay garaadku waxa weeye waan idinka sii oqoon badnahay oqoontaan idinka oqoon badnahay waxa weeye anigu aabbihii iyo hooyadiina cadar xaji wartamay ahay aabbihiina markii uu yimi oo cilmi uga horreeyey ee uu yimi reerku isku qoys baanu gaandaa yaa yuu yidhi cid ugu soo dara reer koreyo anaa laygu daro anaa raacay anaa la ardaa dhigay geel buu wadaa qoraal la yahay ku jirto qoraal xaggaa laga keenay buu wadaa reer xaashi warsama gaandaa aniga axmed sulub annagaa geeli u geynay annagoo qoyskii ah la ina gartay inaan gelbiyo kaxeeyo waxa weeye sidaasaan haddii la koran yahay ku dhisnay 7 habeen markii aan haddii la joogay yaan faras ka fuuray waxa weeye sidaa weeye sida aan haddii la koran waxay iga gaarka ahaayeen intaasaa gaar noo ahayd waxa weeye raalli yaan ka ahaa garaad soo dhawow garaad soo dhawow ugu maalee soo dhawow garaad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad waxaan u salaamayaa dhammaantiin marka hore waxaan salaamayaa odayaasha uqaasha culamaa diinta hooyooyinka gabdhaha dhalinyarada dhammaantiin bahda saxaafadda ciidamada nabadgelyada iyo dhammaantiin oo dhan aad baan idin salaamayaa waxaan si gaara u salaamayaa guddidii soo qabanqaabisay howlkan quruxda badan leh oo ka shaqaynaysa muddo runtii aad u dheer baan aad juhdigay geliyeen timekay geliyeen sida ay u qurxiyeen wiilal iyo gabdhaba aad baad u mahadsantihiin aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum magayn waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad waxaan rabaa ka soo qaybgalayaasha ka yimi meel fog oo juhdi soo galay baabuur soo raacay ka yimi dhulkoodii ka yimi xoolahoodii ka yimi reerahoodii iyadoo lagu jiro xilli aad runtii xilli aad u kulul oo aynu ku jirno abaar dadka ka yimi oo anigu waan ogahay oo aanu saragnay ka yimi magaalooyin fogfog oo si ay uga qayb galaan xafladdan aad baan runtii idinku mahad celinayaa aad baan idin salaamayaa mar kale soo dhawaada waxaan kaloo aan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan gabdhaha mar labaad waxaa jira waxyaalo mararka qaarkood aadan ilaawin runtii qofku hadduu shaqo dheeraada u qabto oo ka baxsan waxyaala dadku ay qabanayaan dee mahadnaqa iyo salaanta cidna ula sumi maysid marka waxaan runtii mar labaadaan salaamayaa dhammaan muddadii dheerayd ee aanu joognay halkan ee anigu aan idinla joogay ee aanu ka shaqaynaynay shaacintan garaadnimada ah waxaan aad runtii u mahad celinayaa oo aanu salaamayaa raggii ila shaqaynayay kuwii mar walba aanu kala warqaadanaynay hawshanna haddaana iyagu aanay gelin aanay dhacdeen aad baan u salaamayaa waa cuqaasha guddida oo joogto ahaa ilaa intii aan la joogay ilaa iyo haddana dad shaqayn doona insha allah aad baan maaragtay aan u salaamayaa mar kale
waxaan keliya oo rabaa haddaba anigu ma dheeraynaya maanta hadalkayga waxaan horta rabaa bal marka u horeysa ilaahay inaad inooga baridaan ilaahay inuu ducooyinkii la duceeyey ee aniga iga horreeyey ee la duceeyey ee mid aniga la duceeyey mid loo duceeyey howlkan dadka jooga oo dhan mid loo duceeyey gebi ahaanba gobolkan Cayn ilaahay inuu naga aqbalo taa marka hore ilaahay ha naga aqbalo odayaashii aniga iga waaweynaa culimaa diintii ka ducaysay ilaahay inuu ka aqbalo oo inoo rumeeyo ducadooda aamin aanu dhahno mar labaad aamin taas waa ducadii anigu ducadu waan ducayn insha Allah markaan gabagabeynayo waxa kaliya aan rabaa maanta inaan hadal badan ma oranayo waa shaacin waxa kaliya aan rabaa waxa weeye waxa aniga had iyo jeer aan dhagahay ku soo dhaca marka aan dad la shiro mar kasto aanu maxaan ku dhaahdaay aan la kulmo odayaal ama dhalinyaro waxa kaliya ee laga hadlaa waxa weeye waxa aniga laga baahan yahay ay tahay cadaalad haddaan qofku uusan lahayn diin ma leh dad islaam waynu nahay cadaalad haddii la waayo diinna ma jirto waad ka baxaysaa runtii haddaad cadaalad aad gafto waxa weeyaan cadaaladdu waa number 1 anigu waxa ballaniga ah inaan cidna aanan kala jeclaysan oo aanan qofka kale ka jeclaysan qofna aanan u riixin xaggayga hadduu aniga ama il qabiil yahay ama uu maaragtay ugu dhow yahay ama uu saaxiib dhow yahay ama maaragtay degaar ay jirto oo mar walba aan ahaado qof dhexdiina ku nool dhex taagan oo cadaaladda u ah tiir uu cuskado mar walba taas waa iga ballan shareecada waxaan nahay dad islaama waxa weeye diinta islaamka ilaahay baa mahad inagu dhaliyay maynaan ku dhibtoon dhul fokabayna raadin gurigeena inoogu timi waynu ku wada dhalanay waynu ku dhaqmaynaa shareecada islaamka taana waxa weeyaan waa nolosheena to ugu horeysa weeyaan indaad ilaahay iyo nabiga maxamed rumayso sallallahu alayhi waa inaad marka aad la timaado waxyaalaha qofka islaamka ah laga doonayay taana waan kula ballamaya inaad iga heshaan talabaad ta saddexaad waxa weeye aan jeclahay iyadana magacaabo waxa weeye horta nabadgelyadeenu waxa weeye waa muhiim waxa ballana qaybta aan ka qaadan karin nabadgelyada aniga iyo dadka aan wada shaqayn doono oo ah anigu kali ma shaqaynayo shaqada dad baan anigu aan ka shaqaynayo dad baa had iyo jeer la shaqaynaya nabadgelyada inay noqoto number 1 cadaaladda iyo nabadgelyada horumarka dhulkeena inaan maaragtay aan ka qayb qaadano intaas waxa weeyaan waa waxyaalaha ah ugu horeeya aynu qabanayno aniguna waxa weeye waxyaalaha aan doonayo inaan sameeynaa waxa weeyaan shaqo loo dhan yahay oo qof kasta oo halkan jooga oo gobolkan Cayn waxa weeye gobolka Cayn dadka ku nool waxaan u ahay anigu qof matala meel kasta aan joogo qabiilooyinka aniga hadda aan garaadka u ahay waxa weeyaan waxaad ku xisaabtantaan wax kasta oo aan qabanayo in qof kasta oo reerkaasi uu ka muuqdo wax kasta oo aynu sameynana ay ku dhisan tahay sharci iyo xeer inoo dhexa taasoo yareynaysa isku dhaca isqabsiga iyo hadiya jeer ay kala fogaanshaha iyo furfurka taasi waxay inoo horseedaysaa midnimo aynu wada midowno oo aynu isku mid noqono oo waxay saaraysaa waxyaalo fara badan oo hadda dadku ay tabanayaan hadda waxaan intaasaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu madar khayr qabayna siiyo ilaahay inuu inaga jabiyo abaartan ilaahay roob khayr qaba oo aan xoolaha inaga laynin oo barwaaqo aynu ka qaadno oo ku liibaano ilaahay inuu ina siiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay kuwa caafimaadka qaban ilaahay caafimaadka u siyaadiyo kuwa xanuunsanayana ilaahay inuu xanuunka si degdeg uga qaado qofka halkan hadda maanta jooga ee xanuunsanaya ilaahay waxaan ka rajaynayaa ka baraya isagoo caafimaad qaba inuu ka baxo ilaahay waxaan ka barayaa kuwii soo safray ee dhulka fog nooga yimi in ilaahay nabadgeeyo guryahoodii ilaahay waxaan ka barayaa ilaahay inuu midnimadeena taam ka dhigo oo aynu dad mida aynu noqono ilaahay waxaan ka barayaa kuwa diinta islaamka ku dhaqmay inaynu noqono ilaahay waxaan ka barayaa meel kasto aynu joogno guud ahaan dhulkeennan iyo Soomaaliyaba in ilaahay uu nabad dhulkeena ku stabaalo ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa in dad isjecel ilaahay naga dhigo